halkani waa suuqa weyn ee magaalada Garowe kaas oo laga dareemayo u diyaar garowgii ugu dambeeyay ee ciida Carafo dadka suuqan ka adeeganaya ee gadanaya dharka iyo agabyada kale ee la isticmaalo maalmaha ciida oo ugu muhiimsan yihiin caruurta ayaa waalidiintu u gadayaan waxyaabaha ay markaasi rabaan ayna ka mid yihiin qoryo iyo biskoolada caag ka samaysan oo loo isticmaalo rash iyo kuul alaabtii baan gadaynaa marka sidii bistoolayaashii sidii baarudi moobilayaashii wax kasta oo hayna caruurta ka farxina Aba Bashiir ayaa ka waramaya saameynta ay cunug u dhalay u geysatay biskooladahan ka samaysan caaga ee lagu isticmaalo baaruda iyo kuusha wuxuuna waalidka uga digay in waxyaabahan bedelkooda ubadkooda ay u gadaan ku cayaarayaan hadda loo carabo aan tagay waaba ka mamnuuc in la keeno sababtoo mid la rido ishay kaga dhacaysa ama meel bay kale kaga dhacaysa dhaawacyo badan bay leedahay waxa bistooladahan iyo midkan rashka la rido labaduba iyo midan iyaduna olasha oo iyaduna sharqanta badan tuurto oo jarqac tiraahda kulli wax oo dhan dhibaato u geysan xataa dharkay ka gubaan dumarka qaarkiisa ama caruurta nabar iyo dhaawacna waa leeyihiin tan isha la ridayaa hadday isha kaga dhacdo bas weeye ishu waa tagta sanadkii hore kuwa ay kaga dhacdaa inta jooga oo yar yara adiga saameyn gaar ahaan saameyn waa ku dhacdo gabar bay kaga dhacdo halkaasay kaga dhacday isha reerkiina xoogaa adigu iska heshiinay cunuga waan qabtay waa ka heshiinay isla Garowe suuqa laftiisa fadhi xun bay ahayd marka dhaawacyo badan bay leedahay ma uma fiicna ubadka marka adiga waalidiinta hatta qof ganacsanaya oo sii jeeda ba xagga laga soo ridaya fargan amal weeye waa ku dhacaysa qofkii meel kaga dhacday garanay waalkii nabarkii waa ku leeyahay ciyaalku qaar baan fiicnayn oo fawda iska digaaga adiga kula mid baaq noocay u diraysa waxaan u dirayaa inay baaruuda laga joojiyo ciyaalka baaruuda bistoolada baaruuda in laga joojiyo wixii kale oo rasha oo dhaawac geynayna in loo keeno oo laga ganacsado baan ku waaninayaa shacabka ganacsada ee Garowe in suuq la keenaa fiican marka waxyaabaha qarxa waliba maaragtay indhahoodii iyo jirkoodii bay waxyeelka xataa dab bay kicin karaan qaar marka waalidku waa inuu ka taxadaraa wuxuu caruurtiisa u iibinayo waa inuu noqdaan wax maaragtay dhibaato u keeni karin iyaka dib weyn anaga hadaan hooyooyinka nahay dib weyn ugu haysa caruurtii baa isku dhufanaya xabad ahaan bay isticmaalayaan guriga baa lagu soo tuuray mar amoodaysa xabad inay kugu soo dhacday hawsheedu way badan tahay wax kale bulshada ganacsatada wax kale ku bedeleen sanadkii hore ay ahayd markii wasaaradda ganacsiga dawladda federaalka Soomaaliya ay ka mamnuucday dekadaheeda in laga soo dejiyo waxyaabaha caruurta saameynta u geysan kara waxaana muuqata in aysan dhaqan galin Farah Maxamed Khaliif Farah Yimani wararka warbaahinta SBC Garowe